Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa baaritaan lagu sameeyey diyaaradda Ethiopian Airlines oo lagu weydiiyey inay qaaday dad shacab ah iyadoo lagu talagalay inay hawada u gasho si tijaabo ah. Haddii aad ku safartay diyaaradda Ethiopian Airlines 5 Maarso waxaad raacday diyaarad tijaabo ah. Ka waran haddii lagu sheego in maalintii aad tigidhka diyaaradda goosatay, kursigaagan aad ku fariisato, suunkan aad xirato, isla markaana aad sugayso kaliya in diyaaraddu cirka isku shareerto ay jirto xog muujinaysa in diyaaradda saaran tahay maalmo ka hor laga diiwaan geliyey cilad dhinaca matoorka ah. Duulimaadkana uu ahaa maanta mid tijaabo ah markii matoor cusub lagu xiray. Taasi waa su-aasha ugu weyn ee ka dhalatay xog iyo caddeymo ay heshay warbaahin lagu magacaabo Goobjoog oo ku taala magaalada Muqdisho, taas oo ku saabsan diyaaradda Ethiopian Airlines nooca la yiraahdo Boeing 737 ilaa 800, sumadeeduna ay ahayd ETN AKUN. Dokumentiyada ay aragtay warbaahinta Goobjoog ayaa muujinaya 2 Maarso 2026 diyaaraddaas laga diiwaan geliyey cilad la xiriirta matoorka diyaaradda, waxayna gubtay mid ka mid ah labada matoor oo diyaaradda, balse nasiib wanaag si nabad ah ayay ku keentay rakaabkii ay siday. Kadib 3 ilaa 4 bisha ayaa lagu sameeyey beddelka matoorka mid ka mid ah, balse waxaa jiray walaac ku saabsan sida ay u shaqeyn karto iyo in lagu ballabay in diyaaradda ay sameyso hal duulimaad oo tijaabo ah 5 bisha kadibna ay sidaas ku qaado dad kale marka ay tijaabada ka soo laabato. Iyadoo ciladii laga sameeyey ayay haddana duulimaadkii koowaad ee tijaabada ahaa waxay hore u qaaday 139 qof oo Soomaali ah oo ka baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, isla markaana kusii jeeday garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa. Waxay gashay safar dheer oo Muqdisho ilaa iyo Addis Ababa iyadoo ciladii weli aan la xaqiijin ee lagu guuleystay. Diyaaradda ayaana la sheegay in xataa shaki uu jiray in shidaalka ay daadinaysay. Sidaa daraaddeed waxay ka dhigan tahay in 139 qof oo Soomaali ah oo rakaab ah ay raaceen diyaarad tijaabo ah. Rakaabkaas dhammaantood maysan ogeyn waxa ka socda qaybaha farsamada ee diyaaradda, waxayna u ahayd maalin caadi ah oo safar ah. Qaar ka mid waxay u socdeen shaqo, qaar qoysaskooda ay booqanayeen, halka kuwo kalena dalkooda ay uga sii gudbayeen meelo kale. Laakiin xogta soo baxaysa waxay muujinaysaa in gadaasha safarkaas caadiga u muuqday ay jireen su'aalo farsamo oo aan weli jawaab rasmi ah loo helin. Marka diyaaraddu ay duushay ayaa waxaa ka dhashay walaac xooggan, iyadoo ay soo food saartay dadkii ogaa ee duulimaadkaas sida mas'uuliyiintii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kuwii hay-adda duulista rayidka ah iyo duuliyaashii ku sugnaa garoonka in diyaaraddu ay ahayd tijaabo balse aysan ahayn inay shacab qaado. Arrintaasna ay u dhacday si qalad ah. Ma jirto wax raaligelin ah ama dadkii wargelin ah oo lagu sameeyey, balse waa loo diyaar garoobay haddii musiibo ay dhacdo ama diyaaradda meel ku dhacdo in isla markiiba la gurmado. Waxaana la qariyey xogta diyaaraddaas in dadka lala wadaago. Sidoo kalena maalintii ku xigtay ayay Muqdisho kusoo laabatay iyadoo dad qaaday. Ma jirto wax ganaax ah ama wax amara oo diyaaraddaas lagu soo rogay. Intii dabagalka xogtan ay ku guda jireen wariyaasha ka tirsan warbaahinta lagu magacaabo Goobjoog waxay la hadleen ilo xogaal ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan waaxda duulista hawada. Ilo wareegyada codsaday inaan magacooda la shaacin sababo amni awgood ayaa xaqiijiyey jiritaanka warbixinta la xiriirtay cilada diyaaradda ka hor duulimaadka. Sida ku cad fariimaha howlgalka ee la isdhaafsaday maalinta duulimaadka, shaqaalaha garoonka waxay guda galeen habraacyadii caadiga ah ee bixitaanka diyaaradda. Waxaase jiray walwal xooggan iyo su'aalo ku saabsan haddii duulimaadkan uu badbaadi doono iyo haddii kale. Wax kasta waxay u muuqdeen kuwo caadi ah, laakiin su-aasha Goobjoog baaritaankeeda ay ku raadinaysa ayaa ah maxay ahayd nooca saxda ah ee cilada la sheegay. Ma ahayd cilad si buuxda loo dayactiray mise waxay ahayd arrin u baahnayd baaritaan dheeri ah. Khubarada duulistu waxay sheegeen in matoorku yahay qaybta ugu muhiimsan ee diyaaradda. Inkastoo diyaaradaha casriga ah lagu qalabiyey nidaamyo badan oo badbaado ah, haddana cilad kasta oo matoorka lagu arko waxay si toos ah u gashaa heerka ugu sarreeya ee lagu qiimeeyo duulimaadyada amniga. Ilaa iyo hadda ma jirto caddeyn muujinaysa in duulimaadkii ET 377 uu la kulmay xaalad degdeg ah ama khatar hawada dhacday, laakiin waxay taasi caddaysay in duulimaadku uu baxay iyadoo cilad lagu ogyahay. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in xogta ay heshay warbaahinta lagu magacaabo Goobjoog ay dhalisay walaac ku saabsan sida loo maareeyay warbixinta cidda mas'uuliyaddaas qaadaysa iyo dhammaan habraacyadii badqabka ee duulimaadka in si buuxda loo maray.
su-aasha ugu dambeysay weli taagan ayaa ah mid jawaabteeda ay sugayaan rakaabkii saarnaa diyaaradda iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Haddii cilada matoor la diiwaan geliyay ka hor duulimaadka, yaa xaqiijiyay in khatartu ay dhamaatay ka hor duulimaadka inta aan lagu biimeyn 139 qof oo Soomaaliyeed? Maxaa loo sameeyay waayay xitaa tijaabo duulimaad kooban si loo hubiyo in ciladii xal loo helay? Goobjoog waxay sii wadaa baaritaankeeda iyadoo raadinaysa jawaabaha su-aalaha iyo warcelinada rasmiga ah ee ka imaanaya diyaaradda Ethiopian Airlines iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Hay'adda duulista ee rayidka Soomaaliyeed sida ay sheegeen, arrintan waa arrin naxdin leh oo walwal badan ku abuuri karta shacabka Soomaaliyeed, iyadoo awalba la daalaa dhacay adeegyo xumada kale ee dalka ka jirta iyo diyaaradaha localka ah oo la sheego in inta badan ay yihiin kuwa aan u qalmin inay dalka ka sii shaqeeyaan tayadooda u liidata. Haddana waxaa soo baxaysa in diyaaradihii caalamiga ahaa dowladda Soomaaliya aysan sidii lagu talagalay ula xisaabtamin. Arrintaana waa arrin naxdin leh oo sababaysa in dad badan ay ka fiirsadaan duulimaadka ay raacayaan.